بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. halkan waxaan kala hadlayaa maanta gaar ahaan waxaan la hadlayaa dadka reer Somaliland baan la hadlayaa. waxaan leeyahay waa reer Somalilandow run ha lagu dhaqmo. waxaan ka bilaabayaa tixraaca hadalkii madaxweynaha. dadka faraha badnaa ee ku dhintay ee kontonka kun ahaa raggii u dagaalamayey maye sidee u nool yihiin inta baaqiga ka hadhay? xaggay ku dambeeyeen? waxa weeyaan waa su'aal taagan weeye. ta labaad waxa weeye dalkii lagu dhiibay maanta xagguu jooga? waxa weeyaan bari oo dhan maanta wuu go'ay. waxa weeyaan raggii iyo hubkii iyo wixii aad gacanta ku haysayna way dhaxal wareegeen. maanta waxa weeyaan midna gacanta kuma haysid. waxaadna tiri waxaan ku beddelay ciidan beeleed. ciidan beeleed waxa weeye in colaaddu sii taagnaato, in dadku midba ka kale qori u haysto, in la wada daaqi waayo. waxa weeyaan dadkii baad isku dirtay, madaxaad isu gelisay. waxa weeyaan colaad aad joogto ah baad abuurtay, qarannimadiina meeshii baad ka saartay. waxa weeyaan maantana galbeedkii baad maqas u qaadatay oo aad bixisay baddi xeebtii oo dhan ilaa gudihii 20 kilomitir oo xeebta ah, 50 kilomitir oo gudaha ilaa xadka Itoobiya ah. war sharcigee kuu banneeyey inaad bixisid dhulka intaa leeg oo weliba taagir 50 sanaan bixiyey? 50 sano adigu ma nooshahay? war ilmaha dhashay maanta ee soo socda maxaad xaqiisi u luminaysaa? maxaad u baabi'inaysaa? cadaawadda intaa leegi maxay tahay? waxa weeye sharciga Somaliland kuuma ogola, ka internationalki kuuma ogola, ka IGAD ma ogola, ka AU ma ogola. cid ogoli ma jirto in dalka la bixiyo. xaggaad ka keentay awoodda intaa leeg aan sharcigu kuu bannaynayn? xaggaad ka keentay? waxa weeyaan ka ku dhasha ee 50 sano ku gaadhaa halkaa dee waa muwaadin weeyaan. hadhowta sideed looga saarayaa? yaa ka riixi karaya? waa colaad joogto ah oo weligee taagan weeye. dhulkeennii reserve area la bixiyey 54kii ilaa maanta waxaynu ku nahay aliens baynu ku nahay. waa laynagu xukumaa. marka waxa weeyaan waxaan qofka kula hadla ee wax kuu sheega ee ummadda baraarujiya waxa weeyaan Somaliland diid. xagee warkaasina ka soo baxay? warkaasi xaguu ka soo baxay? maka dadka ugu jecel baa tahay? maka keliya nool baa tahay? xaggee dadkii kale xuquuq ku waayeen inay ka hadlaan dalkoodii? run baa lagu dhaqaa dadka, been laguma dhaqo. maanta waxaynu aragnaa dalkii qabyaaladii buuxisay. cid waliba ay maanta leedahay annagoo reer hebela oo konton odeel isku soo raacayo. war waxaasi kaamana horreyn kamana dambaynayaan. waxa weeyaan qabyaalad baad fasaxday, ummaddii baad isugu dhiibtay, hub isugu dhiibtay, iyagii baad isku jeedisay. waxa laga shaqaynayaa waa aflagaado weeye.
وكان لي كير لي بالسلوسو فرديا هل كي دتكم ميل أولى كان قاضي لهايين أي وحقبسان لهايين أو وحسوك ورقصان لهايين وهو مركنا تيجي سحقو شوقا بريتيج قلبي نوان قوي حقو شوقا وروحان عن سلي فاتك لهين وحويا صومالي بين حمين سواء كان عين كان عداودهم بالبير تقنى عداودهم بالبير تقنى صومالي وصومالي عندنا صومالي باتحي والميانة قرنين لهذا الله حلين أو هو قبصده وروحان كولي وحليلي ولا ذو ألف وحمالي ألف وحبولي هلا بدو بعدين كصبح على شريتو تبوتي تجي أو يلي صومالي ما سوم بدي ما أنتنا أديكي با برش كلام مرينا إياه صومالي يدتك أو ذا شوكتين يوحي أو حوض قبل سين يكون أو ذا شرسين وحويا رنت هذا الكفرنت كمر رئيسته وحويا مشروعا القادتي كتناسو ترى دتك كوريتش لا تشو دتك وحقرتك لا تشو كيلي تليه ميل متكو وعن كليه قفك وحكو شيقية نستيح بوكو شيقية دم كو شيقية وحاول الذي هم بك حضرية وكبرارتشنية كفايديسو أرادي يورن يا عداودها كهر كينين دتك نوا دتكي وضد الشيء كارهان وحنو شيقية دتك غير هرقيسة وحنو شيقية هرقيس عاصمة نقون ميسو هرقيس وحي عاصمة كون نقون كرتا يلو دله ودل هايستا ودلكا يددك كون والبحر كنتا هرقيس عاصمة كون نقون ميسو إن دلكو بري كسو فيدمو وقلبي لغا فيدو وإن يلا سوكو صوريو تاس ماها عقلي ماناها وحي لو دقالمي قيمانا مالها إلى هالك هادنا إنتينا شوكتانا قبيل سلسو فريستانا ووح لقيا يقصدوي ورنين لابا اسكون مغاني تو حسكما عليا إن الدولة وحا فصحضو ميديانا وحيليسا قفك حقا كو هضليا وحيلا فصحيسا قفك دولميغا كو هضليا قفك قف عايا قفك قبيل ترينيا وحسنو والسيتينيا وميديا ووضو فصحيا والوحا سوى النحلي وكلا فوقاتشو واسنعيب ووحان ميل لقو قالين وحان كلو aan ku daraya wardadku waa u siman yihiin dalka qof walbana xaq buu u leeyahay inuu fikirkiisa dhiibto qofna in fikirkiisa lagu eedeeyaa ma qabato waxaan leeyahay war oldoon fikirkiisa buu sheegay cidna ma caayin cidna ma deedafayn wuxuu yidhi faylkaa ha laynaga laabo iyo axmed miraan ku raacay intaasi dembi ma aha waxaan kaloo leeyahay maxamed ilig iyo dhallinyaradii la shaqaynaysay iyaguna fikirkooda sheegeen iyagana xaq looguma laha inta lagu eedeeyo lagu xidho weliba qalabkoodiina lagu burburiyo waxa kale oo iyala ku jirta wadaadka yaree sheekh mustafa wuu hadlay waddankiina waa laga eriyey hal waxaasi waa maxay de qofkii hadlaba haddii lado waa la eriyanayaa xaggee la tegaya waxaan leeyahay war dadka in la dhabargaraacaa waa xaqdarro in torching in lagu sameeyaana oo waxaan jirin xataa haddii la xilayo in warrant lagu xilo weeye waxa kale oo aan ummadda u sheegayaa
sharciga qof walba ka sarreeya sharciga haddii la ilaalin waayo la dhowri waayo oo walaaltinimada dadka la ilaalin waayo meel aynu gaadhaynaa ma jirto war qabyaaladda yaan la xoojinin war yaan lagu shaqaynin war yaan aanayna indha tirin waxa weeyaan wanaagga ha la raaco qodobka kale aan ku adkaynaya waxa weeye war ciidamadu dalka waxa loo samaystay cadowga looma samaysan inuu xaafadaha marba guri u dhaco oo ila qof baa hadlay qof baa qof eegay war waxaas wax lagu shaqayn karo maaha waxaas wax lagu shaqayn karo maaha maxaad u dhaaratay maxaad dirayska u sidataa maxaad sharafa ood mudan tahay haddaad adiga lagu haysto sidii in lagugu diro qofkaagii ood marba xaafad u dhacayso waa maxay waxaas ciidamada kale ee xooggana difaaca dibaddaaba loo diray ma aha in mar walba la yidhahdo halka lagu soo celiyo la yidhahdo cabodhiya magaalada tuulada la dagaalama war waxa shalayto dhiig la daadiyey miyadanaan garanayn war waxa ragga hore ku maqan yihiin miyadanaan garanayn war waxa rag ku xidhan yahay miyadinaan arkayn war weli mawtiibaa ku sii socotaan shalaytay laascaarood ka dhacdee maantana mabowra maa la doonaya inay ka dhacdo war ka kaca meesha war sharaf isu yeela war dadku dirayska waa inay sharaf u yeeshaan dadku ay dadka dirayska sita jeclaadaan maaha inay lagu baqageliyo in lagu eryeedo maaha xageen alatu wax iskaga celin karayna haddii dadkiiba bahda laga saaro halka kan oo ciidamada loo samaysto gudaha in lagu burburiyo cadow gudo wax la yidhahdaa ma jiro cadow gudo wax la yidhahdaa ma jiro dadka ku hadaaqayaana waa qabyaalo dahsoon ka daaya dadka kala yadaynina cadow waa ka debadda weeye kii debaddaa la taageerayaa kii gudaha kula joogay ee garabkaaga ahaana waa la iimaynayaa war waxaas waxay la qabta maaha qofka xaqa ku hadlayna waa la xidhayaa waxaan idin sheegayaa war dadka waxa weeyaan madaxun baa laydinka dhigaya kama sarraysaan ilaahayna waa idiin dhiibay waana idinku eegaya war waxa weeyaan qiimaha iyo sharaftu waxay ku jiraan ummadda in la walaaleeyo ummadda in laysu ururiyo maanta ciidanka somalilan inuu dadkii garaaco oo u garaaco dhulkiina dhulka iyaga yaan la iibin loo garaaco oo yuu shaqaynaya de miyuu markaa kii dhulka doonayay muxuu kaga duwan yahay ciidankaas waxa weeyaan dekadaha de waaba la kireeyaa oo tii berbereba waa kirayseen idinkoo magaca soomaaliya ku kireeyey waxa weeyaan maanta etoobiya dhaqaale ma haysato ay dekadiyi wax ku samaysato adiga ayaa maanta jaaniskii haysta oo soomaaliya laga dhaafay waxa liya wixii dayn lagu lahaa oo soo qaadan kara oo dekad dhisi kara adaa dhisi kara waxaana weeyaan laakiin maanta dhulkan waa dhul la xaraashay loomana baahna oo baahina inooma hayso una jabi mayno waxa weeyaan waa xaqdarro dadkana ka daa inaad boogtooda xuquuqsado ixtiraaf baa idinku keen waa kuwa sheegaya inaanay ixtiraaf aanay ku dhawaaqin iyagu laakiin ay kala talin doonaan waxaan aan idinku boorinayaa waxaan idinka digayaa dowladdana uga digayaa waa dadka boogta ay u jilicsan yihiin lama xoqo ixtiraaf baan idiin sidaa waxbaan idiin keenayaa waa dadka maatada iyo masaakiinta beerlaxawsigooda iyo iskudurkooda waxaasaad ku caanbaxday waa iska daa
waskida waxaan sidin war dadka been ha ku disin iyagana waxay jecel yihiin ha hordhigin umana haysid umana keeni kartid waxaan idinku boorinaya war aqligu ha shaqeeyo war runta ha loo soo noqdo war beenta iyo mujaamalaadka ha laga baxo war qool jacaylka ha laga baxo war xaqa iyo sharciga iyo nidaamka ha loo soo noqdo wax weyn baa ina wada deeqa wax yaroo qabanay inama kala deeqi karaan waxa weeyaan waxa weyn aan wada dhisano aan runta isu sheegno aan wada hadalno waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto cuquusha iyo ummadda meel kastoo ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullah